yalo waa iga aamusteen walaalayaalow xaaladayda kama ida hadlin walaalayaalow aniga halbowlayaal baa go'an walaalayaalow dalka dibadiisa way caafimaadkaygu walaalayaalow fadhigayga ma ida kicin walaalayaalow goormee wax taraysaaniin walaalayaalow markaan dhinto waa wax taraysaaniin walaalayaalow markaan dhinto waa wax taraysaaniin walaalayaalow markaan dhinto waa wax qabanaysaaniin walaalayaalow goormee wax qabanaysaaniin ilaah baan idinku dhaarshay goormee wax taraysaaniin oo xaaladayda ka hadlaysaaniin walaalayaalow aniga halbowlayaal baa go'an walaalayaalow caafimaadkaygu waa dalka dibadiisa walaalayaalow fadhiga haleeyo kaco walaalayaalow fadhiga haleeyo kaco ummadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa war fadhiga haleeyo kaco war fadhiga haleeyo kaco war adduunka wax la isugu qaban karaa war adduunka walaal lagu yahay war adduunka muslim lagu yahay war waa fadhiga haleeyo kaco war fadhiga haleeyo kaco walaalayaal xaaladayda markaan dhinto waad ka hadlaysaan walaalayaal dad ladan baa la caawiyaa dad caafimaad qaba baa la caawiyaa laakiin anagu wiil xanuunsan baan ahay wiil Soomaaliyeed baan ahay muddo badan baan dhaawacay walaalayaalow xaaladayda ha laga soo hadlo walaalayaalow xaaladayda ha laga soo hadlo walaalayaalow maxaad ii dayacaysaan ilaahay baa xanuunka ii keenay subxaanahu wa ta'aala ilaahay baa xanuunka ii keenay laakiin waad igu nacdeen xanuunka ilaahay ii keenay waad igu nacdeen ilaahay mid caafimaad qabta waa soo qabtaa ilaahay mid xanuunsan waa caafimaadiya laakiin walaalayaal la isku manayo xanuunka ilaahay baa ii keenay subxaanahu wa ta'aala ilaahay baana iga keen jeclaaday laakiin walaalayaal xanuunka ilaahay keeno la isku manaco dad baa sanka iga qabsada walaalayaalow oo dhaha waa kaakii curyaanka ah walaalayaalow garab ha laysiiyo walaalayaalow garab ha laysiiyo muddo badan baan dhawaaqay muddo badan baan qaylinay muddo badan baan lahaa Soomaaliyay muddo badan baan lahaa Tolaayay muddo badan baan si kasta u hadlayay walaalayaalow waad ii joogi weydeen walaalayaalow maxaad igu hakranaysaan waana Soomaali ahayn waana wiil muslim oo Soomaaliyeed ahayn walaalayaalow maxaad ii dayacaysaan dad caafimaad qaba waa la caawiyaa dad maal iyo hanti haysta la caawiyaa walaalayaalow aniga xaaladayda waa ka aamusteen walaalayaalow markaan dhinto waa wax taraysaan markaan dhinto baad iga soo hadlaysaan gormay iga soo hadlaysaan gormay garab siinaysaan maxaad ii hakranaysaan maxaad iga aamusantihiin war ilaahay baa xanuunka ii keenay war walaalayaal ilaahay xanuun waa keenaa caafimaadna waa keenaa walaalayaal xaaladayda ka soo hadla walaalayaal inima dhibeen haddaan caafimaadkayga anugu awoodo walaalayaal caafimaadkayga ma awoodo walaalayaal dal dabadeedana uma awoodo walaalayaal fadhiga ha layga kaco bilaa caleeg 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 fadhiga ha layga kaco marmarka qaarkood wallaahi waxaan is iraahdaa Soomaali ma hidmiya wiil Soomaaliyeed ma hidmiya baa marmarka qaarkood is iraahdaa Soomaali Maxamed maxaa ahaa iyaan la akhrin Soomaali Maxamed iyaan la akhrin Soomaali Maxamed iyaan la akhrin war xaaladayda maxaa looga hadlayaa war xaaladayda maxaa looga hadlayaa weligay cid Soomaaliyeed maana caayin weligay cid Soomaaliyeed maana dulmin weligay cid Soomaaliyeed kuma naga fin war fadhiga la iga kaco war fadhiga la iga kaco war fadhiga